kulanti wanaagsan khiyaarta nala socota idilkiinba meel kasta oo aad joogtaan waa 7 Oktoobar sanadka 2025 qodobadaan idinkugu haya tabinta barnaamijka xilligan waxa kamid ah dowladda Ruushka ayaa soo faragelisay xiisada ka taagan gobolka Bariga Dhexe waxaana madaxweyne Vladimir Putin uu taleefanka kula hadlay ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu waxa la isla soo qaaday wada hadallada ka soconaya Sharm el-Sheikh damaca dowladda Ruushka ee gobolkaasi iyo meelaha lama taabtaanka ka ah ee Israel aysan suuragalka ahayn inay ku fududaato haddaba taleefankan oo noqonaya mid ku soo aado xilli xasaasi ah iyo wada hadalkan waxa lagu tilmaamayaa in dowladda Ruushka ay markan u muuqato in gobolkaasi iyo waliba aragtideeda siyaasadda dibadda ay markan si weyn meelaha qaar ay farta ugu fiiqday haddaba meelaha Ruushka uusan gorgortan ka geli doonin maxay tahay barnaamijka ayaan ku faaqadayaa khiyaarta inala socotay oo aan qodobkaasi si gaar ah ugu faalayn doonaa warbaahinta Israa'iilna waxay daboolka ka qaadeen in dowladda Turkiga iyo madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan laba xiriir oo kala duwan ay la yeesheen hogaamiyaasha kooxaha wax iska caabinta Falastiiniyiinta ee ku sugan magaalada ku taala marinka go'doonsan waxaana sidoo kale soo baxaya in dowladda Turkiga haatan ay u muuqato inay ka mid noqonayso dowladaha saamaynta ku leh gobolkaasi xilli awoodaha baratamaya ee Ankara iyo Tel Aviv ay u muuqanayaan mid walba inay soo bandhigayso xulufo gaar ah inay samaysanayso haddaba Turkiga ma waxa uu ka mid ahaa dhinacyada taageeraya kooxaha Falastiiniyiinta ee dagaalka ka wada marinka maxay tahay walaaca ay muujinayaan warbaahinta Israa'iil nooca xiriirka la sameeyana maxaa lagu tilmaami karaa barnaamijka ayaan ku faaqadayaa khiyaarta inala socotay dowladda Mareykankana waxay war ka soo saartay wada hadallada farsamo ee ka soconaya ilaa iyo hadda magaalada Sharm el-Sheikh ee dalkaasi Masar waxaana sidoo kale walaac laga muujinayaa u qaybsanaha dowladda ama nidaamka Israa'iil ee wada hadallada oo ilaa iyo hadda la warinayo in aanu ka qayb gelin wada hadalladaasi Israa'iilna goor dhow ra'iisul wasaare Netanyahu ayaa fariin gaar ah u diray ergada ka qayb galaysa shirkaasi ee nidaamka Israa'iil ka turjumaya dhinaca kale waxaan intaan barnaamijka jooga khiyaarta inala socota ayaan dul istaagi doonaa maxay ka dhigan tahay in hubkaasi xooga looga wareejiyo dhaqdhaqaaqa hubaysan ee Xisbullah ee ka dhisan gudaha waddanka Lubnaan tani waxay horseedi doontaa dagaal sukeeye maxayse uga dhigan tahay Israa'iil kooxdaasi oo hubka waysa ma koonfurta Lubnaan ayaa la liqi doonaa muxuu yahay damaca Carabta iyo waliba dareenka ay qabtaan dowladda Jamhuuriyadda Islaamiga Iiraan raye dalka Ruushka aqalka looga taliyo ee Moscow ku yaala ee Kremlinka ayaa goor dhow soo saaray war ku saabsan dowladda Ruushku inay faragelisay xiisada ka taagan gobolka Bariga Dhexe iyo wada hadallada Sharm el-Sheikh kadib markii war saxaafadeed goor dhoweyd ka soo baxay aqalkaasi lagu tilmaamay in madaxweyne Putin uu taleefanka kula hadlay ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu Putin waxa uu miiska soo saartay qodobo lama taabtaan ah oo muuqanaya in Israa'iil ay ka feejignaato inaysan tallaabo xaggooda u qaadin sida uu qorayo telefishinka Al Jazeera madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa maanta qadka taleefanka kula hadlay ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu iyagoo ka wada hadlay xaaladda gobolka Bariga Dhexe gaar ahaan qorshaha cusub ee Trump uu soo jeediyay ee ku aadan nabadeynta magaalada go'doonsan ee ku taala marinka dhulka Falastiin sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay aqalka Kremlinka bayaanka waxa lagu yiri labada dhinac waxay si qoto dheer uga wada hadleen xaaladda hadda ka taagan Bariga Dhexe gaar ahaan qorshaha Trump ee xal u helidda arrinta Falastiin oo markan muhiimad gaar ah u leh dowladda Ruushka Putin ayaa mar kale ku celiya mowqifka Ruushka ee ah in xal waara oo dhameystiran laga gaaro iyada oo la raacayo shuruucda caalamiga iyo qawaaniinta la aqoonsan yahay ee dunida isagoo carabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay wada hadallo diblomaasiyadeed oo si dhaba loo wajaho waxa uu yiri markasta oo la fiirinayo in la gaaro wada hadal dhameystiran waa in dhinacyadu ay daacad ka noqdaan in ay heshiiyaan
labadan hogaamiye ayaa sidoo kale isdhaafsaday aragtiyo ku saabsan barnaamijka nuclearka ah ee dowladda Iiraan iyo xaaladda waddanka Syria, iyagoo sheegay in ay xiiseynayaan xal u helidda wadda nabad lagu gaari karo oo arrintaasi muujinaysa in gobolka uu noqon doono meel nabdoon. marka laga yimaado fariinta dowladda ay gudbisay Ruushka ee ku saabsan in arrinta Iiraan iyo waliba xaaladda waddanka Syria uusan Ruushku ka geli doonin wax gorgortana, sida khubaradu ay muujinayaan waxa la dabciyay luuqadii diblomaasiyadda ee lagu wada hadlayay. Netanyahu ayaa bilaabay dhinaciisa Putin inuu ugu hambalyeeyo dhalashadiisa oo ku beegan 7 Oktoobar 1952 markii Putin uu talada dunida ku soo biiray, halka madaxweynaha Ruushkana uu dhinacaasi iyo waliba Israa'iil si gaar ah ugu hambalyeeyay maalinta Israa'iiliyiintu ay dabaaldegaan. maalin ka hor ayaa la tilmaamay in qorshaha Trump uu Putin si weyn u taageersan yahay si dagaaladaasi loo soo gabagabeeyo, laakiin wadahadalladani waxay ku soo aadayaan xilli xaaladda wadahadallada ka soconaya Sharm el-Sheikh la soo warinayo in xiisad adag ay ku gadaaman tahay, isla markaana nidaamka Israa'iil aysan u muuqan in ay si dhowra ama si togan uga qayb qaadanayaan wadahadalka. wargeysada Israa'iil ayaa ku soo warramaya in dowladda Ruushka 24 saac ee ugu dambeeyay ay wicitaano toos ah ku sameynaysay ragga hogaaminaya dhaqdhaqaaqyada hubaysan ee Falastiiniyiinta ee ku sugan magaalada go'doonsan ee ku taalla marinka dhulka Falastiin. wargeyska Jerusalem Post ayaa baahiyay qoraal uu ku tilmaamayo in dowladda Ruushka iyo waliba hogaamiyaha ugu sarreeya ee Recep Tayyip Erdogan ay dadaal ku bixinayaan sidii u saameyn lahaayeen dhinacyadan Falastiiniyiinta xilli la doorbidaya in la gaaro qorshaha Trump uu soo jeediyay nabadda gobolkaasi in lagu dhaliyo iyo joojinta colaaduhu ay hadda socdaan. marka la fiiriyo Israa'iil ayaa walaac badan ka muujinaysa dhaqdhaqaaqyada ay sameynayso dowladda Ankara, iyadoo dhinaca kalena Ankara ay ka shakisan tahay isbalaarinta Israa'iil ay doonayso inay ku samayso gobolka Bariga Dhexe. lama oga ilaa iyo hadda qorshaha wadahadalka iyo waliba jiritaanka dhinaca Turkiga arrintan, hase haatee Israa'iil waxa ay ku doodayaan warbaahinteeda in Erdogan iyo dowladdiisu ay noqonayaan kuwa si weyn saameyntoodu ay ugu sii ballaaranayso gobolka Bariga Dhexe. war ka soo baxay aqalka cad ee Mareykankana waxaa looga hadlay wadahadallada ka soconaya magaalada Sharm el-Sheikh, waxaana ay ku tilmaameen inay weli marayaan heer farsamo oo aan la gaarin dhinacyadii sida weyn loogu kala dab qaadi lahaa inaanay kulamadan qayb ka noqon. waxay arrintan ku soo aadaysaa xilliga wasiirka wasaaradda istiraatiijiyada ee Israa'iil oo hogaaminayay dhinacyada shirkan ka qaybgalaya aanu qayb ka noqon madasha wadahadalka lagu kala dab qaadaya labada dhinac oo aan si toos ah wadahadalka u yeelanayn. hase haatee dowladda Mareykanku waxa ay muujinaysaa yeedidiilo iyo ujeedooyin ay leedahay waxa lagu gaari karaa nabad waarta. aqalka cad ee Mareykanka ayaa Isniinta maanta ku dhawaaqay inay ka socdaan magaalada Sharm el-Sheikh ee dalka Masar wadahadallo farsamo oo ku saabsan qorshaha dagaalka la doonayo lagu soo gabagabeynayo magaalada go'doonsan ee ku taalla gobolka Bariga Dhexe. wadahadallada ayaa waxaa ka qaybgalaya wakiilka gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan gobolkaasi Steve Witkoff, Jared Kushner oo uu sodog u yahay Trump, iyo wakiilo ka socda Israa'iil iyo dhaqdhaqaaqa hubaysan ee Falastiiniyiinta sida afhayeenka aqalka cad Caroline Levitt ay u sheegtay warbaahinta. Levitt ayaa tiri, waxaynu aragnay jimcihii war xiiso leh, dhammaan dhinacyada dagaaladan ku lugta lahaa waxay ku heshiiyeen in dagaalka la joojiyo. waxay aqbaleen 20 qodob ee ku jira qorshaha uu soo bandhigay madaxweyne Trump. waxay intaa ku dartay in tani ay tahay guul weyn oo diblomaasiyadeed, iyadoo sheegtay in maamulka Trump uu hadda si degdeg ah u riixayo fursad fulinta qorshahan si loo gaaro xabad joojin iyo sii deynta maxaabiista. afhayeenka ayaa sheegtay in kooxaha farsamadu ay hadda ka doodayaan liiska maxaabiista Israa'iil iyo kuwa siyaasiyiinta Falastiiniyiinta ah ee la filayo in la isku bedelo si loo hubiyo baa la yidhi xaaladda ku habboon
inay ku habboon tahay sii dayntooda. Lafeed waxa ay tiri maba ahan inaan dhigno qadcas, waayo dhinacyadu waxay diyaar u yihiin in ay arrintan si dhaba u fuliyaan. tani waa midda ay doonayaan Maraykanka iyo Donald Trump. waxa ay sheegtay in kooxaha hubaysan ee Falastiiniyiintu ay toddobaadkan si rasmi ah ugu jawaabeen qorshaha Trump, isla markaana ay aqbaleen qaab dhismeedka guud ee heshiiska, taas oo horseeday in wadahadallada Masar ka soconaya ay noqdaan kuwa ku bilaabanaya arrin yadidiilo leh oo aad u farxad gelinaysa adduunka. sida laga soo xigtay warbixin uu helay telefishinka CNN ee Maraykanka, mas-uul Maraykana ayaa sheegay in wareegga cusub ee wadahadallada magaalada go'doonsan uu ka duwan yahay kuwii hore ee fashilmay, maadaama markan laga doodayo in la gaaro heshiis dhammaystiran oo hal mar dhaca, isla markaana aan la isku soo laaban doonin halkay la samayn lahaa talooyin ama tillaabooyin kala gogo'an oo dhinacyadu ay midba wax soo jeedin lahayd. qorshaha cusub waxa uu dhigayaa in Falastiiniyiintu ay sii daayaan maxaabiistan Israa'iil, halka Israa'iilna maxaabiis Falastiiniyiina oo siyaasiyiin ay sii daynayaan, iyadoo ciidamada Israa'iil ay dib uga guranayaan guryaha magaalada go'doonsan si waafaqsan jadwalka iyo weliba xariiqyo amni oo ay gaari doonaan oo hore loo sii qorsheeyey. si kastaba ahaatee, waxaa weli jira faahfaahinno badan oo ay tahay in laga heshiiyo maalmaha soo socda, halka la filayo in heshiisyadan ay noqdaan kuwa xiiso leh. wararka bariga dhexe marka la fiiriyana, waxaa furmay dariishad cusub oo ku saabsan arrimaha la xiriira dagaalada iyo weliba xaaladda gobolkaasi. waxaa lagu gorgortamayaa madaxa kooxda Xisballah lagu magacaabo ee ka dhisan gudaha waddanka la yidhaahdo Lebnaan. haddaba su'aal baa imaanaysa oo ah, haddii kooxdaasi hubka si qasaba looga dhigo, maxay ka dhignaan doontaa? sida uu qorayo telefishinka Sky News, khubaro iyo falanqeeyaal siyaasadeed oo reer Lubnaan ayaa sheegay in go'aanka la doonayo in xoog lagu dhimo ama looga qaado hubka ururka Xisballah ay tahay mid aan macquul ahayn, maadaama Israa'iil ay wado duqaymaha iyo weerarada joogtada ah ee ka soconaya koonfurta Lubnaan. arrintan ayaa imaanaysa hal bil kadib markii ciidanka Lubnaan uu bilaabay hirgelinta qorshaha ee dowladda ra'iisul wasaare Nawaaf Salaam ansixisay, kaas oo lagu doonayo in hubka xoog looga aruuriyo guud ahaanba kooxdaasi sida ay tilmaamayaan. shirka golaha wasiirada ee salaasadii ka dhacay qasriga madaxtooyada ee Lubnaan ayaa lagu go'aamiyey. madaxweyne Joseph Aoun ayaa ku falanqeeyay warbixinta bilaha ah ee ku saabsan howlgalka hub ururinta, iyadoo weli uu muran weyn ka taagan yahay hubka Xisballah. ururkana uu sheegay in hubkiisa uu yahay difaac kaliya ee Lubnaan ay ka hortagayaan Israa'iil. wararka ayaa intaa ku daraya in duqaymaha Israa'iil isniintii ay fulisay 3 goobood oo kala duwan, halkaasi oo la sheegay inay xarumo ku lahaayeen kooxdan. qorshahan waxaa gadaal ka riixaya dowladda Maraykanka iyo nidaamka Israa'iil, laakiin waxa uu u muuqanayaa mid dagaal ku riixaya marka la eego gudaha waddanka Lubnaan. dowladda Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan iyo xisbiga Amal oo Lubnaan ka dhisan ayaa labadaba ka soo horjeeda, waxaana tillaabooyinkaasi u arkaan mid aan la qaadan karin. hogaamiyaha golaha ammaanka ee dalka Iiraan ayaa toddobaadkii lasoo dhaafa sheegay in haddii qorshahaasi la hirgeliyo, macnahooda uu ka dhigan yahay in gacmaha loo qabanayo Israa'iil cid kastoo awood leh oo gobolka bariga dhexe joogta. akhyaarteena la socotay twintanna intaas ayaan ku gabagabaynayaa. si aad macluumaad iyo warar dheeraad aad u heshaan, ku soo biira YouTube-ka oo subscribe saara. nabadgeen.